السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada asxaabta kusoo dhawaada linkom. haddii Allah wuu darheed maca waxaan bilaabi doonaa course cusub oo tutorial taxana ah kaasoo ku saabsan HTML iyo CSS. HTML iyo CSS waa fundamental web development oo asaasiga ama basic web development-ga marka laga hadlayo. marka waxaan doonaynaa haddii Allah wuu darheed inuu HTML iyo CSS tutorials ka sameeyno maadaama ay yihiin waxyaabaha asaasiga oo loo baahan yahay oo qof kasta oo web developer-nimo u baahan inuu barto ay u baahan tahay inuu sii maro. marka haddii Allah wuu darheed maca waxaanu qaadanaynaa casharkeedii koowaad oo introduction ahaan ah baynu qaadan doonaa. marka first of all waxaan doonaynaa inaan ogaano waa maxay HTML. marka wuxuu ahaan doonaa kaliya theory buu ahaan doonaa, wax practical qaadan doono ma qaadan doono. laakiin wixii caawa dambeeya haddii Allah ku tiriidmo casharkeenu wuxuu noqon doonaa practical wax aan practical ka baxsan oo macnaha theory badan ma qaadan doono, laakiin theory yar kooban oo fahansiin ama concept guud ah baynu ka yar taaban doonaa hadba mawduuca aynu marano. laakiin inta badan waxaanu qaadan doonaa practical. muhiimaduna waa in practical aynu qoro code-ki aynu qoro aynu wax shaqeynaya soo saaro. laakiin caawa maadaama uu yahay introduction uu yahay lesson kanani waxaanu qaadan doonaa theory. marka ugu horreyntii waxaanu rabnaa inaynu ogaano waa maxay HTML. haddii aan wada leedmo CSS waan dib dhigan doonaa CSS-ta. marka course-ka HTML CSS-ka laba qaab loo kala bixiyaa. qaab waa qaabkan inaynu kala qaadno HTML la gaar u dhigno HTML la gaar u dhigno CSS na gaar u dhigno, mid walba gaarkiisa u dhigno aynu fahano. inkastoo marka CSS kala marayo HTML aadan ka maarmayno HTML kiina aad dhiganaysa, laakiin HTML ka marka hore inaynu fahano kabacdina aynu ku tatbiiqino CSS ka aynu ku tatbiiqino. kaas waa wado kale jirto oo ah in labadaba hal mar wada dhigtid CSS ki iyo HTML ki labadaba wada dhigtid. marka wadadan dambe inaan isku mar labadaba dhigno macnaha dad badan bay ku adkaanaysaa oo waayo qofkii hore aan si wacan fahansaneyn labadoodu way ku wada cusbaanaysaa inuu wado maadaama CSS to ay tahay wax baaxadeer ama baaldheer oo ballaaran halka HTML ku kooban yahay. marka waxa fiican marka hore in qofku HTML ka uu fahmo kabacdina uu CSS ku tatbiiqiyo. marka saas ayaan HTML kaliya hadda u soo qaatay. haddii Allah wuu darheedmo aan CSS ku xijin doonaa. aynu casharkeena guda galno. marka ugu horeysa waa maxay HTML waxaa loo soo gaabiyay ama stand for wuxuu taagan yahay hypertext markup language. wuxuu taagan yahay inta hyper waa hta u taagan, textina tida u taagan, markup mta u taagan, language na ilta u taagan. marka wuxuu yiri it is used to design web pages. waxaa loogu talagalay in lagu design gareeyo web pages. web pages wax kale ma aha, waa website-yada web pages. hadda web pages-ka macruufka la yaqaan waxa kamid ah Facebook baa kamid ah. Facebook waa web page. website-yada kale Soomaalida aynu naqaan ayaa kamid ah. dhamaantood waa web pages. using markup language iyadoo la isticmaalayo markup language. markup language wuxuu yahay haddii Allah wuu taleedmo waynu arki doonaa markup waynu fasiri doonaa. HTML is a combination of hypertext markup language. waa hypertext iyo markup language la isku daray. hypertext iyo markup language. hypertext waynu arki doonaa haddii Allah wuu wuxuu yahay. markup kan waynu arki doonaa. waa labadaas oo la isku daray baa waxa la isku dhahaa HTML. okay, hypertext uu soo horeysay. marka hypertext waxa la dhahaa define the links between web pages. hypertext wax kale ma aha, waa linkiyada u dhaxeeya web pages-ka. web pages-ka waxyaabaha isku xidhka ama linkiga waa isku xidhista web pages-ka wuxuu yahay hypertext la yiraahdo. the markup language is a computer language. waa computer language kaasoo isticmaala that use tags u isticmaala. tag wuxuu yahay isagana waynu qeexi doonaa. to define element within a document. waa markup language-ku waa computer language marka hore. waa wax computer-ku isticmaalo. waa language computer-ka uu isticmaalo oo wax lagu dhiso. taasoo isticmaasha tags bay isticmaasha. tags-ka haddii la wada leedmo slides-ka dambe aynu ku arki doonaa. si tags-kaasna wuxuu qeexayaa element-yada. element-ku waa tag-gaas labadii tag kasta waxa isku dhahaa iyo wax ku dhex jira element. marka elementigaas iyo si uu qeexo
wuxuu isticmaalaa tag. Okay, marka waxa loo yaqaano HTML-ku waa links iyo tags la isku daray, intaas oo kaliya ay macnihiisu noqonaysaa. Okay, waxa loo yaqaano HTML-ku wuxuu leeyahay versions iyo macnaha marka ugu horeysa shayga marka la bilaabo inta waa la cusboonaysiiyaa. IT-gu waliba update kama maarmo, markasta update buu baahan yahay, sanad kasta, 2 sano kasta, 3 kasta, intii la awoodaba in la update gareeyo u baahan yahay. Marka since the earlier days of the web there have been many versions of HTML. laga soo bilaabo ilaa markii ayaamii ugu horeysay web pages soo baxeen ilaa hadda loo joogo waxaa jira macnaha version kala duwan oo HTML ku leeyahay. waxa ugu horeeyay HTML ka ugu horeeyay 1991 kii la soo saaray, ku xigay HTML 2.0 oo la soo saaray 1995, 3.2 oo la soo saaray 1997, and HTML 4.0.01 oo la soo saaray 1999 ilaa iyo hadda ka aynu isticmaali doono oo ah HTML5 kaasoo la soo saaray October 2014. marka waa versions kala duwan, intaana update baa ku socda, ma aha wax joogsamay, inta waa la sii cusboonaysiiyaa. marka update weyn iyo update yar baa kala jira. update mid kasta waxaa ka soo hoos baxa update yar oo waxyaabo cusub lagu soo daray, laakiin update-yada waa weyn intaas una ay ahaayeen. okay, haddaba maxaan u baraanaa waa HTML. sababta aan HTML u baraanaa maxay tahay? okay, sababa aynu u baraanaa sababta koowaad waxa weeye it is simple markup language. waa markup language fudud. markup language wuxuu yahay weyn arag waa luqad computer isticmaalo taasoo isticmaasha tag oo fudud weeye, intaas weeye. it is implementation it is easy. macnaha implementation keeda iyo fulinteeduna waa maxay? waa fududahay. it is used to create website. sababta kale aynu baraanaa waxay tahay waxaad ku awoodaa markaad baratid inaad website ku dhistid waad ku samaysid, waliba skeletonka website-ka inaad ku dhistid bay HTML awoodaa markaad baratid. helps in developing fundamentals about web programmer. waxay ka caawinaysaa ama qofka baranaya ka caawinaysaa inuu horumariyo ama uu barto adigu horumarka u sameeyo waxyaabaha aasaasiga ah ee ku saabsan web programming. macnaha waa base-ka iyo barashada iyo halka kuu fursa inaad web programmer noqoto ama web developer noqoto. boosti professional career. xirfadaada ama aqoontaada web development ay kor u qaadaysaa. sababahaas iyo kuwa kale fara badan ayaynu baraanaa. advantageska ama faa'iidooyin ku jira inaan HTML baranaa muxuu yahay? HTML inaan baranaa HTML is used to build websites. waa faa'iidada koowaad. waxaa loo isticmaalaa in website lagu dhiso. adduunka hadda online buu wareegay. online kuna waxa kow ka ah websites-ka kow ka ah koowaad. okay, advantage-ka labaad waxa weeye it is support all browsers. browsers-ka dhammaan kala duwan sida Chrome-ka, Firefox-ka, Internet Explorer-ka, Edge-ka, waxaas oo dhan oo beeraha uu qaadanaya waa lagu isticmaali karaa. support waxay tahay waad ku isticmaali kartaa, uu ogol yahay. it can be integrated with other languages. waxaa lagu dhex dari karaa oo macooda noqon kara luqado kale sida CSS-ka ku dhex dari kartaa, JavaScript ku dhex dari kartaa, kuwa EATC kuwa kale fara badan oo ku dhex dari kartaa. marka waxyaabahaas advantage-kaas ayuu leeyahay. saddexda xaba ayaan ka soo qaadanaya aan filayaa. disadvantage-ka balan eegno wax kasta faa'iido iyo khasaare ay leeyihiin. disadvantage-ka waxaa kamid ah HTML create only static web pages. so for dynamic web pages other language have to be used. halka problem uu leeyahay HTML waxa weeye website waxa loo qaybiyaa dynamic iyo static. marka static kaliya ayaa lagu dhisaa HTML laguma dhiso dynamic laguma dhiso. haddaad u baahan tahay dynamic waxaad u baahan tahay inaad waxyaabo kale isticmaasho sida ASP iyo PHP iyo kuwaas inaad isticmaashid u baahan tahay adiga oo HTML na isticmaala. bal tagiska aynu aragno waxaan soo sheegay tagiska waan ku hadli doonaa. tagiska waxaa la HTML tags normally come in pairs like bdaas calaamada ka weynta iyo ka yarta ku jirta iyo bdaas oo xiran. bdan hore ee cas iyo calaamada ka yarta iyo ka weynta ku dhex jirta, intaas labada calaamadood iyo bdaas waxaa la dhahaa hal tag baa la dhahaa. kan kalena waxaa la dhahaa hal tag. labadooda oo la isu geeyay iyo waxa ku dhex jira waxa la isku dhahaa element.
The first tag waa intan way ugu horeysay. The first tag in a pair horta laba ay ku yimaadaan tag xiran iyo tag furan labadaas ay ku yimaadaan marka kaliya ma timaado bidaas kaliya cid taagan arkamaysa waa inaad tan la socotaa marka the first tag in a pair and the tag in the start tag marka labada tag ka hore waxa la start tag. The second tag is the end tag kan dambana waxa la end tag baana magacyo kale way leeyihiin oo aan arki doono. The end tag is written like the start tag. End tagan waxa loo qoraa sida start tag oo kale isku siba loo qoraa but laakiinse with a forward slash inserted before the tag name. kaliya waxa lagu soo daraa forward slash baa lagu soo daraa tag name ka hortiis. Tag name ku waa biden. halkan waa concept guud oo aan ka siin doono HTML-ka iyo CSS-ka waxay kala yihiin. qaybtan oo kale waxaad aragtaa inuu yahay lafa khaliya qof nafiis khaliya ama skeletonka qofka qalfooftiisa. qofka qalfooftiisa waa HTML. macnaha website-ka markaad HTML ku dhistid waa qalfoofta qofka. waa qofka lafiisi oo khaliya. CSS-ka marka ku jirtidna waa kan qofkii oo labisan oo loo sameeyay dhar loo galiyay dub la siiyay jir la siiyay timihii wixii oo dhan qofkii oo kaba loo galiyay qurux badan laga soo saaray. marka muhiimada koobaad ma aha in HTML CSS lagu sameeyo bila aadan laakiin waxa weeye qofku HTML waa sidan oo kale waa qof bila hilba bila dhara bila kaba aan waxaan ku lafaha khaliya. CSS-ka marka ku jirtidna waa qof qurux badan oo dhameystiran oo jirkii iyo kabihii wixii uu gelinaya intan soo qaadaya CSS-tuna dharkii iyo jirkii iyo waxaan ku timihii wixii bay siinaysaa. waxaan filayaa caawa casharkeen intaas ayuu ku ekaa aad iyo aad baad mahadsantihiin fadlan channelka subscribe saara videogana like saara casharada dambe saad ula socotaana haddii Allah ugu dileedno taxana ayaan ka dhiganaa asbuuci ugu yaraa 3 cashar soo gala gambaleelka furta saad ula socotaan cashar kasta cusub ee soo geliyo aad aad baad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.